kusoo dhawaada dhamaantiinba mar kale iyo barnaamijkeennii Herer iyo Hargeysa oo aanu idinka soo tabinno stuudiyaha telefishinka caalamiga ee Universal ee magaalada Hargeysa. barnaamijkeena toddobaadkana qodobadaan idinku hayo waxa kamid ah laba kor laban dinte laba hoos laban dunde laba godan waa ardayga ugu da'weyn ee inta loo yahay waxbarasho ku jira dhammaan bagayga Soomaalida. waa Maxamed Aw Aadan Warsame oo waliba malcaamad kaga jira magaalada Gabiley ee dhinaca galbeed ka xigta magaalada Hargeysa. aan ku horeyno aan ku bilowno barnaamijkeena Herer iyo Hargeysa toddobaadkan. Maxamed Aw Aadan Warsame waxa weeye ardayga ugu da'weyn ee inta loo yahay waqtigan xaadirka waxbarasho kaga jira dhammaan bagayga Soomaalida. maxamed daadiisu waxa weeye 79 jir waxaanu malcaamad quraan ka dhigtaa magaalada Gabiley oo galbeedka ka xigta magaalada Hargeysa. dhawaan ayaanu aniga iyo shaqaalaha kale ee Universal TV ku soo booqanay deegaanka uu degan yahay iyo waliba malcaamada uu dhigto. deegaanka Gabiley waxa uu ka mid yahay meelaha dhawaan ay ka curteen roobabka gugu. waa subaxnimo hore imika waxaana la maqlayaa cida shimbiraha iyo cida xoolaha. layd aad u wanaagsan baa ka dhacaysa oo muujinaysa roobabka dhawaanahan helaya deegaamadan. Maxamed Aw Aadan Warsame waxa uu degan yahay gurigan aqal Soomaaliga malcaamada uu tagaana waa magaalada Gabiley oo u jirta halkan uu degan yahay ilaa 1 kilomitir. maxamed baan imika u tagi doonaa. محمد سكور هذا سمونا كسنيد عبد السلام هريري ولا يدا عبد السلام هريري وانكم مقلي aad baan ku salaamaya waa ku faraxsanahay inaan halka kuugu nimaadno. waata subaxii waxaad kacdaa xilligan oo kale miya waxaan kacaa kolka la tukanayo salaada waata imika kolkaan wadi iyo waxba dhamaysto yaan siyar tuuraa waxbarashadu waxay ku wanaagsan tahay yaraanta horta waata dhibtay leedahay weynaantuna ana imika arkayo dareemaya oo ku garanaya haddana inaan ajashayda ku sugto ayaan doonayaa ma sha Allah. marka imsada bilowdan malcaamada malcaamada imika ugu yaan tagayaaba waynu israacaynaa iyadana waynu wada tagaynaa wax walba waynu isla soo mari haddii alla yidhaa xagga ilaahay wax u jeeda mahay wax kalena taladeenu maaha taladeenu wax kalaba maaha diinta in la cuskado oo yaraanta waliba lagu bilaabo oo ragin wadeedarteen imika maskaxdiinu way aad ba u nagida ninkayga 3 sano uga dhiman tahay 79 jir baad imika tahay Maxamed 90 jir baan ahay biyahan da'ayay madoobihiina Google la yiri baan dhashay de wax yar maan soo marin adduunyada xoolo wad baan ahaa beer qod baan ahaa badowga ilaahay baan ahaa dadkan ilbaxan imika waban la yaabanahayo ilaahay waxna ku tusay maantana ku tusay adduunyadu sida u socoto saddex baa rasuulkii u tagaalay dameero iyo dumar iyo nin garaadaran oo xoolo leh saddexdii baa dumarka iyo rasuulkii u tagay dameero waxay yiraahdeen annaga waa la naga dhiijiyaayo xoolaha kolkaan dhex gallo waa la naga dhiijiyaa bay yiraahdeen geel iyo wax dumarna waxay yiraahdeen annagoo dhalo un baa budla la dul jooga ninkii garaadan husun baa la yiraahdaa buu amus waxa ma garanaysid akhir sabanka suuga buu saddex tuulba adiga arkayo waxay socdaan halkii ragay socdaan inay dhaafaan reeruhuna kolkaad aragta dibadii magaalada iyagay ka dhisan yihiin ragu wax baa qaato rag jaad baa qaata jarag saddex baa adduunyada nimika haysta jaad iyo been iyo dumar oo halkii raga galay war saddexdaas ay imika adduunyada maxamed waa iska sii soconaynaa islaantuna way iga tala qabtay ilaahay runta lagama weecde laakiin dariiqa ilaahay horta weynaantu way adag tahay alla yaraantu wax wanaagsan ina mariya maxamedow imsa caruuraad leedahay adigu bismillaahi raxmaan war waa jilibedel baan jilibedel iyana reerka reer Warsame la yiri soo dhigta kama maqlaysa sheekh Maxamed soo dhigta kama maqlay
adeerkaybu ahaa way waxaan u taray iyo wuxuu ducay ii taray iyo wuxuu ii taray uu kugu dhalay uma u tarin dhaxalkii bay qaybsadeen anigu ninkaasaan ahaa sheekhaygu waa sheekh Maxamed sheekhiisu waa sheekh Cabdisalaam sheekh Cabdulqaadir Jiilaani nabi Maxamed عليه الصلاة والسلام عرورت واي مصادر ما عرورتيدو وروا بدي لهيو رجيا دمر بوحة لكن وإن بركيسنا آد ألا نيجو ونجير سيرت عسم منها يو ربك بالله يدقي لاجا ما شاء الله وناكسنا وي حبلها يمك بدن رجنا ما يرى واتي ان qaar baan qiyaasaya inay iyaguna reerer leeyihiin reeray ba wada leeyihiin way ninkii uu weynaa wuu dhintayo Allah yarxamo wuxuu ka tagay 6 wiil iyo 5 hablood way 11 kaasuu ka tagay way oo maanta 11 kuba reeray leeyihiin iga dabatay way reerkay dabaday timid anoo ka kalahayo malcamada ku kalahay way iyo reerka timid way qoladii baa raadkaydii soo daba martay way anoo malcaamadii macallinkuna naga tagay inama yaryar la fadhiyay ii yimaadeen way mareykankay ka yimaadeen way anigu ma garanayo geedka iska waxaan ilaan waxba i hoos dhigeen baalkana imika aan arkayad hor hayso iyo ilaan hoos dhigeen aniguna ma arkayo way dhagax baan ku fadhiyaa way kulkaas la yiri intee jirto intaasaan jiray way dadka maxaad oran lahayd bali waxaan oran lahaa wax anaga naseegay baan wardiinta gacanta ku qabto midigta ku qabsada way bixdana xoolaha ku shaqaysta way akhradii adduunyada ilaahay baa isku eegay war labadaba hal la shaqaysto midigta diinta lagu qabtaan oran lahaa baan waa war wanaagsan maxamed waxaad ii sheegtay adeer malcamada goormaad isqortay markii hore goormaad qabatay goormaad isqortay malcamada ilaahay baa qoray anuu baa iska dhaqaaqo iri de xeradaydi waadigan arkaya saa awlan inan baale way ku awlan wuxuu ka sokeeyo xiran baan anugu magacayga lagu sheegaa way xoolo waxaan wadayo waan ka anbabaxay way dhul waan iskaga anbabaxay dadkayga wuxuu wato maahay anugu malcamad baan u bayray ma sha Allah goormaad bilowday markaa malcamada kal hore ka saxad baan bilaabay oo intaas bawaan ku jiraa maxamedow berigii aad yarayd quraanka ma baratay may way waxba madi baan ahaa way madi iyaan ahaa aabahay kaliday oo kaliya sheekh Maxamed uu ka weynaa way reerka dhammaantii kolka leeyahay reerka aan dhex joogno dhammaantii reer Maxamed Duxud baa leeyahay uradkiisii baan way sheekh Maxamed baa arrinkan nagaga tagay oo damaystay way war urad reerka ma taqaanin maya وأنا كان كل سؤال الحاج محمد. وي. حسين حاجي ولا. وي هذا أنا نسكت عنه. ها. يجري. وي. وأنا كان. سيدا سان هايو مادي بان هايو تد برقضو يبرق على سوم بان هايو ضد كنا هون يدعادون بوحل جود قمية. وي. إلهي وحيم بيقول لقي. هاي. إنتان لاقي. صعب يدد كم وريق جدنا ما بنقولنا إلهي بيجي مديكين. وي وعيارها يو حاسك ما يدفع عنين. دن تيرون بانقينا. وي. يروحون وحنا هدنتيس كوكبو بدنتيس. هو رجي أنا سكوك كده هنا هرتود بنقول وي. دنين دنتيس أنا لجوكتان هاي رون ما هي أم بين يوحني يوم قالوا وحنا نكو أركيبه. هاي. الشقدود بهين شقدود به. وي. إلهي كحيل. إن صدق سنوات كور مركات بلوضي. عرورت هذا يجوا مبرتين قرانك. عرورت هذا مد جبوتي جوجا وداد بون كل قران براي. وي. مد محمد علي جوجانا وداد بون وان براي. وي. انت كلا أنا قوم برين. هاي. واحد انت واحد نول بياشين. وي. ديد انت عدليني أموره وضد بدن كوريا لمبانا. way marka qaar ba kaaga horeeyay quraanka barashadiisa adiga ha ku waygaan dhalay ha Djibouti jira iyo ku Maxamed Ali joogaba ragii aan yaraanta ku baray bay ahaay way kuwa sabartay anigu wan haleeliba maxamed marka xaaskaaga iyo caruurtaadu markii aad go'aansatay inaad malcamada isqorto sidee bay u arkayeen waxay u arkayeen aabaheen
هجان وناكسن بقى لكوك يوم بيدان وهي قرات كالحافة واي أبهن هجان وناكسن أي إلهي كوك أي إلهي كوك حي واي هل كان بيرتان حقا نغير بيرد نمش واي قوبة ديدا واطي إن سداسي أو أركيه صباح ذي مركز العمد تجيسو iyo duurkii markaad soo dhameysaan duurkiina waad ka soo lugaysaa Soomaa subaxdiina waad sii lugaysaa subaxdii baan lugeeyaa way duurkii hablaan dhalayo xalkan magaalada ayaan ka qadeeyaa way oon iska yar fadhiistaa way kulkan yar jeefsan gelika dambe ayaad soo carrawdaa ayaan ku hortan ku noqdaa malcamad way oo gelinka dambena waad dhigataa waan iska dhigtaa way anu adduunyada bawan ka baxay wax kalaba way inaan quraanka yar dhigto oo wixii weydiiyeen quraanka uun baan idhaha war xagga diinta hello jeesto way war xagga diinta hello jeesto way deegaankan maxamed oo imika aynu marayno maxaa la yiraahdaa deegaankani dee waa gabil oo reer maxamed xood baa reerkan la yiraahdaa way reerkan sheekh maxamed yar reerku ku magac lahaa weeyaan reer maxamed xood weeyaan kan magaaladana waa nuxigi jiray واتني مكاننا سوق قالوا بيريه وابا لقى يبسني aniga beertaydu waa korka lafta kale ku dhowda way aniga lafta sare ayay ku dhowda marka weliga sheekiye shaahid miyaad ku maqashay ama ku aragtay qof kula dao waxbarashada quraanka sida u barto oo malcaamad qora intaan joogay horta dadku waqtiga hore waxa la ahaan baadi iyo oo magaalada qajeel way yarayd magaaladu way yarayd way magaaladan oo afar wax yar oo gargida iyaan garanaya way oo yar maantana waadiga arkay waxay socoto dee adduunyadii waa dhulkii waa waxa hadarkay sida aakhir zamanku wato runina way yartahay way bahashan beenihiyo rago ilaahay balki jaad madooba ku qaatay badidiisa baan arkayaa way ilaahay baan ka baryaa waan hadaad horiba u ilbix weydad beenta ma baran weyda ilaahay xaga diinta u jeedo committed ajashaada ku sugan naftayda gashay maxamedow horan xoolahan wadeeyeen u badnaa sheekh Ahmed man gacan yar u noqdayo adeerkay ahayo waxaan u yeelay kuwa u dhalay anay u qabanin way in xuni ka dheer buu oran jiray in xuni ka dheer in xuni ka dheer ilaahay waxba wuu iga dheereeyay shacab loo gudo ma arag waxaan dantaada ahayn maaha meel kale kuguma ogi habeen u baydhi ma ihi ducadiisi baa mala igu mulsho awlaadaydiina waxay noqotay dantooda qabsi iyo aabaha ka ducee bay dantooda noqotay iyagana war ummadan ka joogtaba la mid ma ihi kolkaad ii fiirsato ma sha Allah maxamed waaga hore markii aad koraysay waxa qiyaasaya deegaankan aad ku kortay galbeedkan aan ku koray reer ugaas baa dhalay aniga way reer ugaas nimanka la yiraahdo iyo ay dhalay way xaqaasan ku koray way dabadeed sheekh Ahmed bay soo jiito nin wali ilaahay wax siiyayna aha bay soo jiitay way deeda xooliyo beer maahe radaan leeyahay wax kale ma way marka deegaanka ku koraysay ama dadka ha noqoto ama deegaanka laftiisa ha noqoto maxaa ugu weyn isbedelay baad oran leeyahay wax wal oonan isbedelin maba jiraba wax yar iyo wax badan adduunyadu way isbedeshay way adduunyadu way isbedeshay way wuxuu yiri shacabda Ismaaciil shacabda Ismaaciil wuxuu yiri maqalban hangolka u sidaa maalin iyo leyl marka baan meel ka kabaya aan qad yurare mina waraan kula shiraan meyti iyo xaye sabadan wareega sidii malag ilaahay way war waxaan ku iri waxaan amarag waliya ka soo gaaray ama murtidooda aan ka soo gaaray waxaan adduunyadan imika joogaba ma way adduunyadan maanta been iyo waxaan jirin oo dadku ku shaqaysanayo waatay ilaahay wuxuu ina siiyay islaam buu inoo dhaliyay way wax ka wanaagsan oo adduunyada magac ka wanaagsan oo la sheega ma jiro way gaali waxay iskugu jabtay islaamka uun bay lugo leedahay oo jebi way garanaysaa inay diinteen wax walba ka sareyso haddana waa kuwa isle sanamkaaga caabudo
هؤلاء بسمانة والبروح على النسية أجينا قلنا على النسية واي النبي إنها أركينا وحول بأركينا الصومال المدني قاليني إن أديك صدق إنك يسكو كان ترى هو دون يبلغ واي إلا هو قال مكري سجبي بنكود عيسى كورول واي دولة دا إسلام كان نقطينا في حق إسلام كقرط الله يوكيلون وناج واي عدم كو أبا الله يونققبه بلد دحده إنه كوجرتا الله يونق فورر تملي إنك سو جيدنا الله يونق جيد وروح حسن كدعيا كورول ما شاء الله ما شاء الله دعاء يدبو wax kala ma ان واي malcamada dabcan goordhow tagi doonaa hadii Allah yiraahdo quraan kitaabkaagiina halkan ka muuqda oo adiga ku jeeni qaaran carruurta malcamada dhigataa markii ugu horeysay maxamed oo aad qortay sidee adeer ku arkayeen waxay ahaayeen laba khisladood bay kala ahaayeen way shaqiyar yar oo jaahil yar oo nan deed kan weynu ila yaabayay bay ahaayeen ragna waxay ahaayeen rag garaad laho wax fiirinayo oo leh bilin kan weyn baaba diinta alla ku soo jeeday inaguna maxaan qabanayna oo ku iyaguba ku tuutiyo ragis durbabo ay amba baxeen yaraanta wax lagu bartaa war weynaantu fal adag bay leedahay aliga xaqana la iigu jeediyo baan ku dhex joogay weynaantu way adag tahay inaad wax ku barato way ku adag tahay aarsaha loo jeesto yaraanta imika ninkan baalkayno haya in hor socday ninka kale iyo maca adiga waxbarashadin wanaagsana waxbarashadin way wanaagsan tahay ilaahina aan barino islaamnimadeennana han ilaahina u shukrino wax alla ina siiyay ee magaca Soomaaliyeed alla ina siiyay islaamka la yiri war miyal helayaaba malcamadii imka waa tan inoo muuqata maxamed oo Soomaa waa tahay inoo muuqata malcamadii waa tahay inoo muuqata marka gelinka hore muddo intee lag ba dhigataan waxaan dhiganaa ilaa 10ka ilaa 10ka ayaanu dhiganaa dabadeed waan ka rawaxnaa anu waqtigii hore halkan imika gelin ma ka maqnaa waqtigii hore kulka carruurtu nus saaciya wax tidhaa anu kali baan halkan baan iska fadhiyay nus saaca marka ma bixi jiraa ma bixi jirin anugu waan iska fadhiyayo kulada waaga hore iigu timiday macallinkoo naga baxay oo naga maqan bay ii timid oo carruur yar la fadhiyo saas ay igu warsadeen oo inta misajir baa tayo dadka maxaad oran lahayd iyo waxaan bal ila bayr anna ma garanayo waxaan lay hoos dhigay bakolka waban ilbaxay ba imika ninkaygan ilbaxay marka gelinka dambe goorma hadana malcamada ku soo noqotaa gelinka dambe waqtigan imika waa mandaynaayo gelinka dambe ma dhigno waan ka maqnaanaa laakiin gelinka hore yaan dhiganaa ilaa 10ka quraanka imika halkeed maraysaa maxamedow waxaan marayaa jiskii labaad waa jis tabaarig jiska tabaarig baan marayaa wuu adag yahay ninka weyna waxbaan dhiganayaa yidhaa dhibteeday leedahay anaa arkaya ninka yaraanta wax ku baranayaana maskaxdiisa u furanoo aad buu u fiican yahay dadku inuu inta maskaxdiisa furan tahay inuu wax bartaa wanaagsan ninkii dabayl ilaahay samartaay da'dii kastaba wuu ku baran wuu wadi da'dii kastaba wuu wadi war diinta loo aysho oo midigta lagu qabto dadkeena Soomaaliyeed war diinta midigta lagu qabto oo magaceena Soomaali ku baxay hal wanaajiyo oo sida xagga Ilaahay hanu socono waa akhriya adduunyo aakhiradu badan lagu dambayn malcamada dabcan waynu tagi doonaa waynu arki doonaa carruurta waa ooda halka ka muuqata ooda geedaha waaweyn dhax abaan fadhiisanaa dhagax ku fadhiisan jiray on fadhiisanaa halkaas imika macallinka ku dhex jira halkaas quraanka ku dhigaa halkaas anagu kol looxan ku dhigan jiray kol kitaabkan ka marsan jiray والله حنا واد كدغان جرتay maxamed ma looxa igu kol baan kolku igu adkaadaba waan ku noqdaa dib baan ugu noqdaa maxaa la kala malihi anigu imika xaqqa baan u jeedaa islaamkana xaqqa baan ugu duceeyaan ku jeedaa oo nidhaa ilaahu dadka noo wanaaji dhagaxaanta iska ilaaliya waan arkayaa carruurta malcamada dhigataa 3 sanadood baad imika la dhiganaysay ma kula qabsadeen carruurtu
ها وان سبرنا سهرة ويد ويجينا ويجي تديدين مكوي لقب صدينه ما تكتي نبضهم marka caruurta hadii daadooda markaynu yaraanta lagu baro un bay ku fiican yihiin daadooda maxamed markaynu eegno kuwa awowga labaad u tahay ay isku daayeen Soomaa awow saddexaad kuwana habaabay isku daayeen awow saddexaad kuwana noqdo ayaa bay isku daayeen way malcamada maxamed digtaawa malcamada nimka muuqato oo dan geedka weyn hoostiisa fadhiisaneen ma sha Allah واتن way bal imika malcaamadaynu eegaynaa iyo gudaheeda iyo ardayda dhiganaysa iyo macalinka iyo baynu la hadli doonaa macalinka sare jooga macalino waa maxamed maxaad sheegtay nabad baan sheegay macalin anigana cabdisalaam herri baa la yiraahdaa ها أهلا وسهلا صلى الله فينا إلهي نبعدي ولا اسكفر يسمى محمد هذا هل كيف فريستاديو أنا لا هل كلام فريستاد ورياض يسكور ما صلى الله عليه وسلم هذا يا خيال صلى الله عليه الله أن مع الحسن ومركي قاضي محمد وبالعبي وجوه الرئيسي وكويمي سيدو أركيسي waxaan arkay inaan waxba qaban quraanka aan qaban karin yaan arkay laakiin dadaal buu muujiyo si fiican buu qabtay quraanka alif uu ka bilaabay loox buu ku bilaabay sidoo waday fartii isaga qoray imka ilaa 3 juz buu sii maraya aad buu wanaagsan yahay imka yar xanuunsada xanuun buu xaafad u gaaray mooyaane uu wada quraanka u wata wali caruurta kale wuxuu ii sheegay maxamed in markii hore ay la yaabi jireen imka soo warkaan aad baa imka nin waliba ninkii arkaabo la yaabay imka sidoo wax u bartay macna markii horena waa la yaabay waxa la lahaa si ma ban kari si iska dabal lahaa markii dambana dadkii kalaaba ku hambeeyay inay soo galanba ay yimaadaan ay quraanka bilowdaan imka aad buu qabtay imka imsa caruura malcamada imka dhigtaa ilaa 7 wadhitaan marka oday maxamed maalin walba way yimaadaan miya u yimaada markuu xanuunsan mooyaane u yimaada shina kama habsaamo marka maalintii ugu horeysay markuu ku sheegay xasan oo in uu doonayo inuu malcamada isqoro sidoo arkaysi waxaan arkay marka waxaan idhi kullay hawl kale ma haysid hawl badan ka dhiganay laakiin marka asmaan lahayn wax uu baranaya asmaan lahayn laakiin markaas waxaan ogaaday in weynida laga wanaagsan yahay yaraanta xasano wadii marino da'deeni imika waxa igu noqdeen indhihiiba imika yar ciira way igu noqday waagii horena dee waa aad baan u arkay imikana yar ciiro ha noqotee dee niyadaydiiba xaggan ugu jeeday bismi illaahi araxmaan araxiim nuun walqalami wamaa yasturuuna maa anta min nicmati rabbika limajnuunin wa ina laka la ajran gayran mamnuunin wa inaka lacalaa khuluqin cadiimin fasatubsiru maa yubsiruuna sunsaa laba godan laba kor dhaban dindee laba hoos dhaban dundee laba godan ani magacayga wax la yiraahdo Cabdirasaaq Muuxad waxaana inta malcamadan ku taala oo macna Sheekh Xasan dhigo odaygiina saaxiibana oo nala dhigin jiray ilaa sanado hore saaxiibana waatay odayga ma sheekaysataan marka xilligan saaco kale haa sheekaysanaa muxuu marka ka sheekaysataan waxaan ka sheekaysanaa sida miyigaas u degayo miyiga sida xoolaha loo foofiyo waxaan ka sheekaysanaa waatay idinkuna maxaa uga sheekaysaan anaguna waxaan ka sheegnay sida wax baraniyo iyo duruusahan u qaadan waa hagaag waxaan u malaynayaa sheekadaasi inay muujinayso inaanay waxbarashadu lahayn daa lagu joojiyo iyo cimri ay ku dhamaato midnaba